waa munaasabad si bilan loo soo agaasimay oo wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Faarax uu xilka kala wareegayay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cabdiqani Ibraahin Maxamed Ataasha. Munaasabadda xil wareejinta ayaana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen agaasimayaal, guddoomiyeyaal, xildhibaano, wasiirro iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland, kaasi oo madasha ka soo jeediyey hadallo soo dhoweyn iyo mahadnaqa. xafladda quruxda badan leh ee bilicda leh waxaa ka shaqeeyay markaa shaqaalihii wasaaradda oo runtiigana aad iyo aad ugu mahadnaqaydo bar rabaan lagu jiro inay dadaalkaas sameeyeen howlkay naga qurxiyeen madasheen oo kale. waxaan soo dhaweynayaa wasiirkeena cusub Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed. labada wasiir waa isku magac weeyaan, marka labadaba waa Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed. markaa halkaa lafteeda xikmad baa ku jirta markaa wasaaradda inay dee siday ku socotay oo duulaysa ku socon doonto bay muujinaysaa. wasiirka hore Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed baa ka tegey, wasiir Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed baa yimi, xawaarihii ku socotay bay kusoo dhaafaysaa. marka aad iyo aad baan kusoo dhaweynaa wasaaradda. runtii waa wasaarad ballaaran, wasaarad qiimo leh, wasaarad qaranka ugu fadhida markaa muhiimad gaar weyn. waxaa runtii aada wasiiru noqon doontaa inaad hagto siyaasadda guud ee qaranka ee lagu hagayo markaa gaadiidka dalka, si guud markaa gaadiidka hadduu yahay gaadiidka dhulka, hadduu yahay ka cirka iyo hadduu yahay ka badda. Intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo u badnaa guddoomiyeyaal, agaasimayaal, wasiirro iyo madax kale oo ka soo qayb galay munaasabadda. Cabdirasaaq runtii uma cusba shaqada dowladdu, institutionka dowladdu ka soo shaqeeyey, golaha sharciyeedka ka soo shaqeeyey. waxaan rajeynayaa aqoontiisa, falsafadiisa iyo cilmiga iyo aqoonta runtii lagu doortay ee madaxweynuhu ku qaatay inuu wasaaradda kusoo horumarin doona. gaadiidkan aynu maanta joognaa shilka ugu badan wuxuu ka dhacaa gaadiidka. dagaaladii kuma dhintaan dadka dhintaa sanadkii. maanta halkan farxad weyn bay noo tahay inaynu ka soo qayb galno xafladda ay isku wareejinayaan xilka laba wasiir, wasiirkii hore ee wasaaradda wasiir Cabdirasaaq iyo wasiirka cusub wasiir Cabdirasaaq. runtii wasaaraddan aynu maanta xafladdeeda joognaa waa wasaarad aad u muhiim ah oo dalka u haysa shaqo halbowle ah. مسؤولها الدولة إن حبوا نقطة الشبي ونسيها يبقى كسي وضع وقرر ويحسن وينولا هاي وكأني الدكتورين إذا وهذه المعلومة حوالينا وسيلك خارج جوري عبد الله ما جلاه بقر وسيلة جورا هي عبدالرزاق وهي هاي نمط ديناميكا. لكن وجود عيننا يلي هاي كحيل ترى Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Faarax waan leeyahay soo dhawow. saaxiibka Cabdirasaaqna saaq farsamana inta kale wiski ka mid ah, isagana waxaan ilaahay ka rajeynayaa habigiisa sare inuu rumeeyo. waxaan kaloo jecelahay in la garab galo Somaliland dhani in Cabdirasaaq garab gasho farsamo ahaan iyo taageer ahaanba, maadaama waanu jecelahay Somaliland la wada leeyahay. munaasabaddan maanta isugu nimid waa xil wareejin haddaad maqasho horta waa duco. ka xilka la wareegayana waa loo ducaynaya, kii wareejiyey ka horreeyana waa loo ducaynaya. wasiirkeennii hore Cabdirasaaq Ataash, horta dadku magacaan u saxay waxay yidhahdaan Ataash. Ataash maaha, waa Ataash. wasiirkeennii hore ahna maalqabeen ka mid ah maalqabeennada Somaliland, ahna garaadka beesha, ahna guddoomiyaha ururka waaberi, ahnana aqoon-yahan. waxaan leenahay ilaahay meel hore ku mariyo. kulley duco badan uma baahna, ilaahay baa mariyay meel hore. waa guddoomiyaha dhaarta u harsan tahay. qaybihii dambe ee munaasabadda ayaa waxaa madasha ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland iyo wasiirka cusub ee xilka la wareegay. mudane wasiir, waxaad nasiib u yeelatay inaad ku soo dhawaato oo aad hormuud u noqonto insha Allah wasaaradda ay joogaan dad leh skills iyo aqoon baahsan
oo runtii waddankan asad u ah adigana kuu noqon doona gacmo shaqaale tababaran oo daacad ah shaqaale la soo shaqeeyey wasiiro leh haykal iyo aqoon iyo waayo-aragnimo kala duwan taasoo ay ka dhaxleen aqoon iyo waayo-aragnimo fara badan waxaad wasiir ku soo dhowaan doontaa wasaaradda laga warramay ee dalkan ugu fadhida macnaha weyn ee runtii dalkeennu haddii ay wasaaradani sida cabdilaahi abukar uu sheegay ay hesho gacmihii ay ku shaqayn lahayd oo ah miisaaniyad ku filan dalkeennu uu heli lahaa shaqo abuur iyo dhaqaale fara badan oo dalkeenna soo gala waxaad ku soo dhowaataa wasaarad ay ka howlgalaan shaqaale kor u dhaafaya 1,070 qof oo shaqaale ah waxaad ku soo dhowaataa wasaarad ay gacanta ku haysa macadaad kor u dhaafaya miisaaniyadda ay dalka ku joogaan 30 milyan oo dollar xayndaabka dowladnimo kuma cusbi muddo dheer ayaan la soo shaqaynayay golaha xeer dejinta sidaa daraaddeed waxaan ku shaqayn doonaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane muuse bixi cabdi hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijka xisbiga kulmiye haddaba waxaan dhammaantiin idinku codsanayaa inaad igu soo ducaysaan xilkaa in ilaahay ugu asturo